aniga maxaa ii diiday inaan farxane, maxaa ii diiday inaan baashaalo, waan boodboodaya, waxaan doonaa ayaana samaysanaya. Dadka ayaa waxay ii dhahaan adigoo og inuu xiriirkaaga burburay, adigoo og inaad kala harteen, adigoo og inuu dhaawac ku soo gaaray, maxaad misana u farxaysaa? Sabab maxaa isku xiray farxadeyda iyo midaas? Aniga waan farxaya, waqti walbana waan faraxsanaanaya. Kuwa qaar xitaa waxay ii dhahaan adiga wax walba adiga ayaa ka dambaysid, qof xunna waa tahay. Haa, waxaad doontaan waad i dhihi kartaan, balse aniga ogow qof xun ma ihi. Maanta haddii aan wax waayo, sababta aan u faraxsanahay ma taqaanaa? waxaan huwa oo xaqiiq ah beritoole in aan helayo wax ka sii fiican oo kasii qurux badan. nolosha ayaa sidaas ah, wax walba dhacana qalad anaga kuma lihin. adiga waan ku ogahay, su'aasha mar walba kugu taaganaya waxay tahay qoftan maxay mar walba u faraxsan tahay, maxay habi u tahay mar walba, xitaa maxay hal mar murugo u dareemi lahayd? Sababtoo ah waxa ma jeclaanino midaas aad is leedahay soo maahan. Maya, aniga waxaan ahay qof aaminsan qadarta Rabbi, waxa waliba oo dhacana waxaan aaminsanahay inay yihiin wax ii qoran. taasna waxaan leeyahay alxamdulillah.